magaalada Amsterdam ee caasimada dalka Netherland waxaa jibcihii aynu soo dhaafnay ee 3 bishan Abriil lagu qabtay kulan ku saabsanaa sida ugu haboon ee wax looga bedelay karo dhaqamada xun ee ay Soomaalida ka caada yeesheen sida guurka qasabka iyo wixii soo raaca. ashirkan oo ahaa furitaanka mashruuc loogu magac daray Caraweelo dhalinyaro waxaa soo qaban qaabiyay ururka Somkan ee u dooda xuquuqda carruurta Soomaalida waxaana kala shaqeysay hay'adda Netherlandeska ee Mufisi. mashruucan Caraweelo ayaa waxa furitaankiisii ka soo qayb galay madaxda ururada Iftiin iyo Iftiin ee ka kala dhisan gobolada North Holland iyo Limburg iyo hay'ado kale oo Hollandees ah kuwaas oo halkaasi ka dhibtay fikradahooda ku wajahan sida looga hortagi karo caadooyinka qaldan ee ka mid noqday dhaqanka Soomaalida. sidoo kale kulankani waxaa goobjoog ka ahaa Cali Waare gudoomiyaha dalada Efsan, Shamso Xasan Saciid oo ah gudoomiyaha ururka Somkon ee isagu soo qaban qaabiyay shirkan ayaan ka wareystay arrimaha mashruucan Caraweelo. markii horena mashruucii hore la socotay Caraweelo kaas wuxuu ahaa mashruuc loogu talagalay dadka waaweyn oo maaragtay xagga dhaqamada dhibka badan ama dhaqamada xun waxa lagu magacaabo maartay ama dhibaatooyinka keena si looga hortago doodaha bulshada loo fududeeyo ayuu kii hor ahaa kan marka maadaama dadkii waaweynaa ay aan 2 sano soo wadnay mashruucaas ayaa hadda dhalinyaradu maadaama ay yihiin dadkii mustaqbalka ayaa hadda Caraweelo oo dhalinyaro ah Caraweelo yaan sidaas keentay inaan maartay sababtaas. waxaa sidoo kale intii ay socotay munaasabadani laga dooday kaalinta aabaha iyo hooyada ay ku leeyihiin nolosha qoyska iyo ubadka korintiisa iyo waliba kala duwanaanshaha ragga iyo dumarka iyadoo halkaasi laga jeediyay fikrado kala duwan. dadku isku wada mid ma raggan isku wada mid ma naagahan isku wada mid ma kulli waa isku dhex jiraa nin fiican oo xaaskiisa kalmeynaya uga jira gabar xun oo iska wareegaysa abay maalin oo ilmeed wax ku qabin oo ilmaha dhalaysa dadka iska wareegaysa لكن مركي مسكحية اللي عقلية بين آدم بالرمل وفيري ويسميه سجال مش سجال بقول هدوه برانكر وبرانكر هدوه عدكر وعنكر وعنا غنكر لكن حاجة وحوى ذقيب سجى ما عرفت الشقادة نلشة وحكى لنا وإن عن أسنا ما sida ay TV kalsana u sheegtay Shamso Xasan waxa mashruucan Caraweelo uu socon doona muddo 2 sano ah waxana laga fulin doona gobolada North Holland, South Holland, Brabandi, Limburg iyo Overijssel. waxaa mashruucani tababar lagu siin doonaa ilaa 12 dhalinyaro ah oo isugu jira rag iyo dumar iyadoo dhalinyarada loo tababari doono sidii bulshada Soomaalida ee qurba joogta ay looga wacyigelin lahaa caadooyinka xun ee ku jira dhaqanka Soomaalida. mashruucani waxaa maalgeliyay hay'adaha Orion Funds iyo Scan Funds. Maxamed Cabdi Faarax, Kalsan TV, magaalada Amsterdam, Netherland.